oo ceeb leeyahay soo qaado oo dad xamanayso waxaad ogaataa adiga midda aad leedahay baa ka badan waxa kale oo ku talagalaysaan dadka dabagalaya muslimiinta iyo dadka mu'miniinta rag iyo dumar ceebahooda oo xamanaya oo wax ka sheegaya waxaad ogaataa ilaahay baa ku dabagalaya subhanahu wa ta'ala nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi salaamu alayhi adiga midda aad leedahay baa ka badan waxa kale oo ku talagalaysaan dadka dabagalaya muslimiinta iyo dadka mu'miniinta rag iyo dumar ceebahooda oo xamanaya oo wax ka sheegaya waxaad ogaataa ilaahay baa ku dabagalaya subhanahu wa ta'ala nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi salaamu alayhi يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه وركون قونا قلبي قونا إيمانكم قلن عربك قون إيمانك كالشيغان يوم قلبي قونا أنسان إيمان قلن لا تغتابوا المسلمين والمسلمين تهحمنين ولا تتبعوا عوراتهم عورات ظهر راعنا ذاتك المؤمنين هنا حمنين عورات ذي عيبتنا هذا قلنا وكوكو تالي وحال يددك سيدا سميلية وضد قلبك عن إيمانك أفضل لكن عرفكم كشيغاني وكذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يتبع عورة أخيه فتبع الله عورته روحي ولالك عيبتي سبوجرة وحمانتي سبوجرة وطليشي سرادية السنة الإلهي بقى عيبتي سبوجرة ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال روحي إلهي الضبط عيبتي سبوجرنا وصبحين دونا ولو بريه سأسكده سبها أهاته إلهي هذا وقد لو أدومدي سدون بتقلين ويدي ساكو رد قلمي هذا العيب توضى دبقش أنا إتلا كنت دبقلي هذا كنت دبقلنا ووكو فضيحين وعيب كادوا مرهم بالبنان كيري دونا ما نفكر دونتي ساس برادة دوال حركة يسابتك قاركود سيدو السفاك كأولين وي أدومدي إلهي ودب الشقين oo guriyaha u duminayeen oo dadka isugu dirayeen oo ugu dheer abuuranayeen dadka ba ilaahay subhanahu wa ta'ala intuu dabagalay ba markii dambe ceeltoodii la wada ogaaday oo la isu wada sheegay farta lagu fiiqay ilaahay baa fadhiixay subhanahu wa ta'ala sidkaas u maraya waka tale wati yadahay way si yadahay guriga gasho oo dhan waxa la leeyahay waa si yadahay inuu guriyaha fasabinay iska jira alisu darmay limaada laana ilaahay baa fadhiixay subhanahu wa ta'ala فضيحينا وحا كاني وحي دبقش أما روحاني أو دبقل إلهي سبحانه وتعالى أدومديس أدونك إلهي سبحانه وتعالى عهدي سو كتشرا بلن إلهي بو كتشرا إلهين إلهي بو كتشرا حفظ إلهي بو كتشرا أدونك مرك إلهي أعبده سبحانه وتعالى ردقين كحرية سيداس جرادت إلهي سبحانه وتعالى مجنتي سأقول بدقلي مجن إلهي سبحانه وتعالى مجنت الرب هذه الكابح سويده رب ما توصل ولا دقال سبحانه وتعالى ربنا ما شو كاسو قال يسقى قرنية وما يعلم جنود ربك إلا هو إلهي عيدا مدي سيسقون باقرنية سقون باق طالما ملائك بالغو فصحي طالما الدين تلقى قل دونا وخاطمة لقى هلين دونا طالما عرورتي غيرك لقى قل دونا وذاتك يعديك على سوكين ديري دونا طالما عرورتي لقى قل دونا علمي بات شكرا يوحب لا يقب كان نقول دونا طالما ما أديك لفت هذا العاصمات كلا جاجر دونا إلهي مركو دمع إنه كلب قلمه لأن أكاسو قلي دونا ما قرنيس واحد سميسا إلهي عدو مري سوونا بتقلية مؤمنين سوونا بتقلية أفكيني أدن كينا مؤمنين سوها كنا بتقلين ذاتك وحي خير تكون عنتنا أبكت به شركة جنا ذاتك مؤمنين تاكعش وخاصة عربك هي خسرتي سهل اسكقطو dad badan buu naarta galiyay dad badan buu khaatim xumo sabab ugu noqday dad badan buu karkaarka weydaariyay dad badan buu hadda khatar ku sii wadaa waxaad samaysaan ilaahay subhanahu wa ta'ala dumar inta laga baqo carabka hal iska xasilo hal iska qabto khayr ku hadal ama aamus haddaad ceebaha dadka aad ku fooftana waxaad ogaataa adigu ceeba inaad leedahay haddaad dadka ceebahooda sheegtana kaaga waa la sheegi هذا ذاتك عيرهودا كقابستنا إلهي واكو أسطره يا سبحانه وتعالى إلهي هيدن أسطره وهينا وضع أسطره إلهي سبحانه وتعالى أين عابدنا وأين كبقنا آخرنا أننا أين إنبضا أدنا ولا ليال إن
badan aakhira aan u danayno waxba ina tari mayso wax faa'iida oo haba yaraatee kaasoo gelaysana ma ay jirto hebel baa saasa iyo heblaa sidaas wallahi inaan lagu faa'iideyn hadda ka hor haddana inaan lagu faa'iideyn mustaqbalna inaan lagu faa'iideyn majaalista aad isugu imaanaysaan iyo meelaha aad isugu imaanaysaan meelo khayr ha noqde ilaahay isxusuusiya diin ka sheekaysta khayr ka sheekaysta sheeko iska caadiya ka sheekaysta oo macnaha cidna aan ku saabsanayn oo macnaha waxa weeye iska sheekadaas macnaha waxa weeye iska mubaaxa ah laakiin arrintu markay gaadho ruux muslima in la taabto waa inaad danqataan oo iska istaagtaan markaasi soohin khatar aad gelaysaan haddii mid idinka mida ay samaysana inta kale waa inay difaacdo soo nabigu ma dhihin sal alla alay wasalam unsur akhaaka zaaliman aw madluuma walaalkaa u hiili hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay markaas saxaabadu waxay dhaheen rasuulillahi haddii laga gardaran yahay garanay oo dee waa la isgarab taagi laakiin hadduuba isagii gardarrada wado see ugu hiilinayna nabigu wuxu yidhi sal alla alay wasalam hadduu gardarrada wado gacanta qabo waxaad tidhahdaa jooji sidaasaa hiiladiisaa buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalam intaasaa hiilo ka qabo cadaab buu kusii socdaa naar buu ku dhacaya khatar buu ku jiraa walaalkaa ka qabo walaashaa ka qabo ha u qasmin ha u marxabaynin iyayna kugu yani wax weeyaan ha u yani sheekada yani iyayna kugu wadin waxaa la doonayaa inaad tiraahdo jooji heblaad jooji meel alisaad gashay cagta udhig hadday kaa maqashana khayr hadday kaa maqli weydana meeshaas si fadhiina ka kac meeshaas ruuxa muslima hilibkiisa lagu cunayo ha fadhiin waqad nazala calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha fala taqcuduu macahum xataa yaquduu fi xadiisin gayr inakum idan mislahum hala fariisanina dadka munkaraadka iyo macaasida haya xanta haya dadka wax ka sheegaya dambiyada ku jira hala joogi haddaad wax ka qaban kartana u sheeg oo khayrka u sheeg hadday wax kaa qaadan waayana hala sii fadhiin hana la qoslin hawshana ha la wadin ha u marxabaynina ka kaca nabiguna wuxuu yiri sal alay wasalam ruuxii walaalkii difaaca sharafkiisa meel walaalkii sharafkiisa wax lagu yeelayo ruuxii difaaca ilaahay baa subxaanahu watacaala wuxuu wejigiisa ka ilaalinayaa naarta maalin uu u baahan yahay in wejigiisa naar laga ilaaliyo ruuxii walaalkii oo hilibkiisa la cunayo sharafkiisa la dhaawacayo xishmadiisa meel lagaga dhacayo aamuso oo hiiladii uu ka mudnaa aan u hiilin oo garabkiisa ka baxana ilaahay subxaanahu watacaala garabkiisa ayuu ka baxayaa meel uu u baahan yahay in loo hiiliyo ilahay uu ku hiiliyo ma rabtaa addoommada ilahay u hiili dulmiga ka hortag xanta ka hortag been abuuradka ka hortag majaalista xunxunka ka hortag ruux khayr lagu yaqaana ha noqoto marka dambe waxaa dhacaysa lagula soo aadi maayo la waa hebladii xidhxidhnayd weyaa baa lagu odhanaya waa tii xidhxidhnayd ee dabeecadda xumayde wadaada ahayde marka dambe reebaadiyaha ahayd baa lagu waa tii reebaadiyaha ahayd markii wax lasoo qaado ilaahay ka baqa marka dambe waad nabadgeliyo banaankaasaa lagaa maray weligoba reebaadiye iyo yani mid dabeecad xun waxay doon ha akriyo laakiin muhimaddu waxa weyaan adigii ka nabad gashay mushkila laakiin waxay ku haysataa markii oo aad inta lagula soo aado oo gurigaaga lagu qabto oo shaahi soo kariso oo keegii iyo hawshii soo diyaariso oo marka kadambana aad hawsha wax ka shamirto marka ayaa ku haysa shaki male ha noqdeen marka walaalayaal majaalisteena majaalis khayra ha noqdeen meelahaan isugu imaanayna iyo kulamadeena kulamo khayra ha noqdeen labada ruux markay isu yimaadaan khayr ha kala faa'iidaysteen ruuxu markuu hadlayo wanaag ha ku hadlo haddii wuxuu ku hadlayo uusan wanaagayna ha aamuso haynu ku talagalno ruuxa xumaanta ku hadlaya shaydaanku qaatay in la qabto oo la xakameeyo isagana dan baa ugu jirta muslimiintana dan baa ugu jirta sidaasi waa waajibka ina faran iyo xilka ina saaran xumaanta iyo xanta iyo waxyaalaha shaydaanku inugu qaadayana aad iyo aadaan looga taxadaro carabka ha la baro inuu ilaahay xuso subxaana watacaala carabka ha la baro inuu wardiyo carabka ha la baro inuu yidhahdo subxaana allah carabka ha la baro inuu yidhahdo laa ilaha ila allah carabka ha la baro inuu yidhahdo laa xawla walaa quwata ila billah carabka ha la baro inuu caadaysto alxamdu lilahi wallahu akbar carabka ha la baro dikriga ilahi subxaana watacaala iyo wanaaga khayrka dadka inuu faro xumaantana ka reebo carabka sidaa ha la baro xumaantana ha laga qabto carabkan layli buu u baahanya shaq buu u baahanya wuxuu u baahan yahay tarbiya u baahan yahay tarbiyadiis